wafdi ballaaran oo ka socday dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maanta socdaal ku yimid dalka Soomaaliland. Wafdigani oo ka koobnaa wasiirka beeraha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, wasiirka DPP iyo madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya. Waxaana wafdigani kaga hortagay magaalada Wajaale oo halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka warfaafinta Soomaaliland, wasiirka beeraha maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Wajaale, wasiirka xigeenno agaasimayaal iyo fanaaniin. wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Daahir Cakuse iyo barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalka wafdigani. maanta halkan waxaan u taaganahay inaanu soo dhaweeyno wafdi ballaaran oo dalka Itoobiya nooga yimi, gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. wafdigaasi Itoobiyaanka ay dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ka socdo oo xubno wasiirada iyo xisbiga xaakimka talada haya xisbiga talada dawlad deegaanka Soomaalida haya. waxaan soo dhaweynaynaa labada dal iyo labada wadan ee Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya annagoo ixtiraam u hayna, sharaf u hayna, kalgacal u hayna ayaanu leenahay soo dhawaada Itoobiya, soo dhawaada dawlad deegaanka Itoobiya. wafdi ballaaran oo walaalaha oo ka yimi kilka shanaad oo wasiiradiisu ku jira iyo agaasimayaal. waxaan ku soo dhaweynaa dalkeenii labaad oo Soomaaliland ah. waxaan kaloo ku soo dhaweynaa gobolkii xajka lahaydeen Gabiley. anigoo ah gudoomiyey gobolka Gabiley, waxaan ku leenahay gacmo furan iyo qalbi furan ayaan ku soo dhaweynaa, waana dalkeenii labaad. sidoo kalena madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyay xubnaha ku wehelinaya wafdigani iyo ujeedada socdaalkooda. waxaan mahad celinayaa dalkan Soomaaliland iyo wafdigan la soo dhaweeyay. annaguna waxaan ka nimid dalkan ajaarka nahay ee Itoobiya, laakiin nidaamka federaaliga isagoo sidiisa yahay inaga waxa inaga dhaxeeyo xiriir. waxaan u soconno waa tii inaan wanaajino. aad baan u mahadsantihiin. waxay la socdaa aniga wasiirka beeraha Cabdirasaaq, la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha, wasiirka DPP Mr. Fatax iyo Cabdiraxmaan Bootaan. waxaan u soconaana waa dalkan. waxaan ahay madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hon Cable TV, Gabiley.